salaamullaahi calaykum daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii faaqidaadda waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa dagaalo qadhaadh oo aan waxba laysku reeban ayaa ka socda waqooyiga itoobiya warbixin ayaan idinka haynaa dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalkaasi itoobiya gaar ahaan gobolada waqooyi diyaarada aan haybtooda la aqoon ayaa ka degay magaalada maqale ee caasimada Tigray waxayna halkaasi ka qaadeen xubno ka tirsan hogaaminta kooxda TPLF mucaaradka hubaysan ee Itoobiya ayaa ku sii qulqulahaya magaalada Qaahira dowladda Masar ayaana halkaasi uga dhigtay gogol la filayo in lagu sii huriyo colaada ka aloogan ama ka aloosan deegaanka waqooyiga Itoobiya xoreynta Oromiya ayaa qabsatay warshadii duleedka Addis Ababa iyo sidoo kale inta badan gobolka Ambe deegaanka Oromiya deegaanka Canfarta ayaa si weyn uga hor yimid ciidamada Eritrea ee deegaankaasi lagu soo daadguraynayo qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan waxaana dhankayga midig fadhiya saaxiibkay Fahiye nooga waran dagaaladii ugu dambeeyay ka dhaca deegaanka gobolka Tigreega aad ayaad u mahadsantahay Axmedow saaxiibadeena waan salaamahayaa dagaalo aad u culus ayaa ka socda waqooyiga dalka Itoobiya labadii usbuuc ee u dambeeyay dhinacyada ku dagaalamahayo gudaha dalka Itoobiyana waxay isku dayayaan mid walba inuu midka kale gool ka sheegto dagaaladan aan wali waxba la isu reeban dhinacyaduna ay isu adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka socdo deegaanada Humera Shareero Rama Tazarona Salambasa iyo Dalaalo sida uu xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan dhinaca TPLF iyo sidoo kale Getachew Reda oo isagu laftigiisu kaga hadlay baraha bulshada dhinacyada kale ayaa sidoo kale waxa dagaalo ay ka socdaan deegaanka Amxaarada iyo sidoo kale deegaanka Canfarta waxa kale oo la sheegayaa maanta in dagaal aad u qadhaadh oo aan waxba la isku reebanin uu ka socdo deegaanka loo yaqaano Dhidebedka Soga oo aan la qiyaasi karin dhinacyadu waxay isu adeegsanayaan daryaanka hubka culus ayaana laga maqlahayaa agagaarka deegaanadaasi intaasi waxaa dheer in deegaanka Goobiye in ay qabsadeen ciidanka militariga dalka Itoobiya Goobiye waxay 19 kilomitir oo kaliya u jirtaa magaalada Waldiya ee gobolka Wallo waxayna ciidamadu hadda u sii jeesteen magaalada Qobo oo TPLF horaantii maalmihii ay dagaalka soo qaadayba ay ku qabsatay waxa la sheegayaa in ciidamada Itoobiya ballantoodu ay tahay qabsashada magaalada Alamata oo ka tirsan gobolka Tigreega Abiy Ahmed oo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa maalintii shalay ahayd qaatay tuutaha dalkaasi dhinaca kalena waxa uu iska xaadiriyay furimaha hore ee dagaalka dhinaca deegaanka Canfartana waxa la sheegayaa in dagaalo yar oo goosgoos ay dhex marayaan ciidanka liyu booliska ee Canfarta iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya deegaanka xuduudka gobolka Tigray iyo dalka Eritrea dagaaladu ilaa iyo hadda ma aysan istaagin dhinacyaduna waxay kala sheeganayaan guulo sidoo kale waxa meesha aan ka maqnayn duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha ciidamada militariga dalka Itoobiya oo garabsanayo kuwa dalka Itoobiya isku soo duuduubo dhinaca deegaanka Humera waxa laga soo sheegayaa saansaan colaadeed xuduudda u dhaxaysa dalka Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya ciidamada Suudaani oo aad u fara badan ayaa lagu soo aruuriyay aagaasi dhinaca kalena maanta waxa la yaab noqotay in ciidamo ka tirsan dalka Suudaan ay iska soo duubeen muuqaalo ay ku garab istaagayaan ciidamada Tigreega horay waxaad u ogeyd in taliska guud ee ciidanka dalka Suudaan ay sheegeen Itoobiya markay ku guuldareysatay dagaalka lagula jira TPLF dhinaca kalena ciidanka Itoobiya ay si hulhuleel ama si maalinle ay isu dhiibeen in ay ku eedaysay in ay qayb ka yihiin ama sidoo kale Suudaan ay qayb ka tahay dagaalkaas intaasi waxa dheer deegaanka Oromiya waxa ka socda iyaguna dagaalo aad u xoogan oo ay geysanayaan ciidanka jamhadda xoreynta Oromiya kuwaas oo sheegay in ay inta badan la wareegeen warshadihii waaweynaa ee ku yaalay duleedka magaalada Addis Ababa iyo sidoo kale inta badanba gobolka Ambo ee deegaankaas waxaan horay warbixinadeena ugu soo gudbinay in gobolka Shawa iyo sidoo kale gobolada Wallaaga galbeedkiisa inay ka socdeen dagaalo xoogan oo ciidanka jamhadda xoreynta Oromiya Ola ay halkaasi ku qabsadeen xiriir militari iyo hubka waaweyn ee ciidanka militariga Itoobiya xukuumadda Abiy Ahmed waxaad moodaa inay aad ugu mashquulsan tahay dagaalka waqooyiga ka socdo oo dhinaca kale aysan taag iyo tabarba midna u haynin dagaalkan ka socda dhinaca dowlad deegaanka Oromiya jamhadda xoreynta Oromiyana waxa ay sheegtay qabsashada warshadahan iyo sidoo kale gobolka Ambo in ay tahay tilaabo horumarineed oo ay sameeyeen gobolka Ambo ay gacanta ku dhigeen Batatanba 90 kilomitir oo kaliya ayuu u jiraa caasimada magaalada Addis Ababa waana gobolka ugu qanisan deegaanka Oromiya dhinaca kalena istiraatiiji u arrimaha dagaalka jamhadda xoreynta Oromiya waxay soo bandhigtay kumanaan ka tirsan ciidanka liyu booliska deegaanka Oromiya iyo sidoo kale ciidanka militariga Itoobiya ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada kuwaas oo isu dhiibay ciidanka jamhadda xoreynta Oromiya waxayna sheegeen in taasi ay imaatay kadib markii ay ka guuleysteen ciidamadii militariga Itoobiya dhinaca kalena hadda shacabka Oromiya hal dhinac u jeedsadeen
axmedow waxaa xusid mudan Maraara Gudina oo ahaa gudoomiyaha xisbiga haddana ah gudoomiyaha xisbiga OFC ama Oromo Federalist Congress in uu shalay warbaahinta la hadlay oo uu sheegay in isku dayada lagu doonayo in dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia in la iskugu keeno in ay ka maqan yihiin qoomiyadda Oromada taana macnaheedu ay tahay in dagaalka Ethiopia inuu dhamaado ama uu soo gabagaboobo inaan loo qorshaynin dhinaca kale waxa uu walaac weyn ka muujiyay in shacabka Oromada dowladda federaalka Ethiopia iyo wadamada reer galbeedkuba ay ku hayaan faragelin qaawan iyo sidoo kale inay dhibaataynayaan waxa uu intaasi ku daray in waxa weeye shacabka Oromada dhibaato xoogan ay ka haysato xaaladda ka taagan guud ahaanba dalka Ethiopia dhinaca kalena xasuuqyo kala duwan loo geystay shacabkaasi markaad fiiriso saansaanta colaadeed iyo sidoo kale dhinacyada ku dagaalamaya dalka Ethiopia iyo sida midka kale uu doonayo inuu dhabarka uga jabiyo waxaad moodaa xaaladda Ethiopia inay tahay faanoole fari kama qodna dhinaca kalena ay doonayaan in dalkaasi uu mustaqbalka u dambeeyo uu burburi doono iyadoo dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha diblomaasiyadda ay sheegayaan mustaqbalka Ethiopia xilligani in uu galay mugdi iyo meel uusan ka soo noqon karin sidoo kalena dhinacyada ku dagaalamaya aysan ahayn kuwa xilligan la heshiisiin karo isku soo duuduubo axmedow dagaaladu maalinta ka dambayso waa ay sii kordhahayaan dhinacyaduna guule ayay kala sheeganayaan faahiyow su-aashaan ku weydiinayna waxaa weeye waxaa jira in diyaarada aan haybtooda la garanayna ay ka degeen magaalada Maqale ee caasimadda u ah deegaanka Tigreega waxaana la sheegay diyaaradahaasi inay qaadeen saraakiil sarsare xaggay diyaaraduhu soo mareen iyaysa qaadeen maxaa warkan xaqiiqo oo ka jira axmedow aad baad u mahadsan tahay wararkeenna hore saan ku tabiinayba wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ethiopia horey waxay u sheegtay in hawadeeda ay soo galeen diyaarado aan haybtooda la aqoonin kuwaas oo ka kala degay gobollo kala duwan oo ka tirsan deegaanka Oromiya iyo sidoo kale gobolka Tigreega waxaa kaloo wararkeenna hore u sheegnay saaxiibadeen in dalka Iran ay ka soo dejisay magaalada Casmara ee dalka Eritrea diyaarado wado shixnadaha militariga iyo sidoo kale diyaaradaha drone-ka sidoo kale waxaa soo baxayay in diyaaradaha Antonoviga la yiraahdo ee xamuulka militariga qaado oo toban inay ka degeen deegaanka Tigreega dhinaca kalena ay TPLF siiyeen gantaalka loo yaqaano FIM-92 Stegner missiles kaas oo inta badan gumaado ama waxa weeye sheeg burburiyo diyaaradaha drone-ka iyo sidoo kale diyaaradaha helicopterka iyo baabuurta xamuulka waaweyn ee isticmaalaan militariga dalka Ethiopia arrintan maanta soo baxday ee ah in ay diyaarada ka degeen magaalada Maqale caasimadda gobolka Tigreegana waxay ahayd arrin shuxshuxdeeda iyo isweydiinteeda ay ka socotay guud ahaanba dalka Ethiopia dhinaca kalena dowladda federaalka ee Ethiopia ay dhowr jeer ku eedeysay in ay wadamo shisheeye doonayaan in ay waxa weeye dalka Ethiopia ay khalkhal ku abuuraan sidoo kalena ay geliyaan xaalad hubanti la'aan oo la doonayo in dalkaasi lagu burburiyo haddaba axmedow waxaa la sheegay in diyaaradahaasi ay maanta ka degeen magaalada Maqale qayb wararka ka midana waxay sheegayaan inay habeenkii xalay ahaa ka degeen sidoo kalena ay qaadeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan falaagada TPLF dhinaca kalena ayba keeneen mas'uuliyiin kale oo ka tirsan falaagada TPLF oo ka maqnaa gobolka Tigreega waxaa horey u soo baxaysay arrimo la xidhiidha in madaxweynihii Tigreega Debretsion Gebremichael uu ku maqan yahay magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaas oo ku diyaarinayo kumanaan ka tirsan ciidamada dalka Ethiopia arrintan dhinaca kale waxay soo baxaysaa xilli mucaaradka dalka Ethiopia ay shirar iyo sidoo kale kulamo goosgoos ku leeyihiin wadanka dibadiisa diyaaradan waxaa la sheegay saraakiishan ay qaaday inay yihiin kuwa muhiim ah warbixinada ayaa sheegaya in ay laba qaybood yihiin axmedow qayb waxaa la sheegayaa in wada hadal uu socdo dowladda federaalka ee Ethiopia uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo sidoo kale falaagada TPLF dhinaca kalena la doonayo in la wada hadalsiiyo iyadoo horaanba la sugayay doorasho ka qabsan dalka Kenya si ay ugu wada hadlaan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya balse TPLF ayaa horey u sheegtay in wadamada Afrikaanka ama madowga Afrika aysan dhexdhexaadin karin dhinaca kalena aysan go'aan ka qaadan karin calaada ka hulaaqayso gudaha dalka Ethiopia isku soo duuduubo ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo diyaaradahaasi dalka laga leeyahay meesha ay ka soo kaceen iyo sidoo kale saraakiisha ay ka qaadeen gudaha magaalada caasimadda ee gobolka Tigreega dowladda Ethiopia wax war arrintaasi kama aysan soo saarin dhinaca TPLF-na kama aysan hadlin arrintaana shaki weyn ayay ku abuurtay shacabka ee deegaanka Tigreega iyo sidoo kale shacabka Amxaarada iyo guud ahaanba dalka Ethiopia maadaama si waxa weeye joogsi la'aan ay diyaarada uga soo degayaan gudaha dalkaasi su-aasha saddexaad ee rabay inaan ku weydiiyo waxaa weeye sida qodobadii ugu horreeyay baan ku soo qaadanay mucaaradka Ethiopia ayaa ku sii qulqulaya magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar
waxaana la sheegayaa gogoshaasi inay fidishay dowladda Masar oo si qarsoodi ah ay weli ku daldalayso arrimahaasi maxaad kala socotaa axmed aad baad u mahadsan tahay shirkan ka socdo magaalada qaahira ee caasimadda dalka Masar ma aha mid qarsoodi ah dhinaca kalena dowladda Masar arrintaasi ma ay qarinayso oo si weyn ayay u soo shaacbaxday kadib markii mucaaradkii ku shiray dalka Mareykanka sanadii 2021 oo uu ka mid ahaa shakhsi Soomaaliya dhinaca kalena TPLF ay hogaaminaysay ay go'aan ku gaadheen in taliska Abiy Ahmed laga takhaluso haddaba habeenkii xalay ahaa ama 24 saac u dambeeyay saraakiisha ugu sarsareysa mucaaradka hubaysan ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale shakhsiyaad kale oo ka tirsan ururada nabadda qaatay iyo kuwa aan nabadda qaadanin ee weli dibad wareega ah ee dalka Itoobiya iyo guud ahaan cid kasta oo ka soo horjeedo taliska Addis Ababa ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku sii qulqulaya magaalada Qaahira ee caasimadda ee dalka Masar waxaana la sheegayaa in shirar goosgoosa ay ururadu halkaasi ku yeelanayaan oo ay waxa weeye kaga tashanayaan in waxa weeye dalka Itoobiya sidii loo burburin lahaa iyo sidoo kale sidii taliska Abiy Ahmed meesha looga takhalusi lahaa dowladda Masar iyo Itoobiya sidaad ogtahay Axmed waxa ka dhaxeeyo horeyna aan u sheegnay khilaaf xoogan oo salka ku haya arrimaha biyaha Niil iyo sidoo kale khilaafka labada dal oo cirka isku sii shareeray sanadii u dambeeyay dowladda Itoobiya ay ku eedeynaysay in dowladda Masar ay doonayso burburinta iyo sidoo kale in Itoobiya ay ka dhigto meel qalalaasa ama uu ka dhaco civil war ama dagaal sokeey eedeymahaasi dowladda Masar ilaa iyo hadda kama aysan hadlin balse daaha gadaashiisa ayay wax walba ka maamuleysay oo waxaad ogeydba in dowladda Suudaan ay horay gacanta ugu dhigtay dhinaca kalena dhoolatus military ay ka wada sameeyeen magaalada Khartoum iyo sidoo kale xeryaha militariga dalka Suudaan xilli la filahayo in dalka Soomaaliya ay kumanaan ciidankeeda ka tirsan keensato dhinaca kalena ay ka samaysato saldhigyo military sidoo kale mucaaradkan hadda ku sii qulqulayo gudaha dalka Masar iyo caasimadda Qaahira ee dalkaasi waxaa la filayaa in ay halkaasi ka soo helaan sanad military iyo ubaad xoogan lagana dhawaaqo guud ahaan dalka Itoobiya jamhado cusub waxaana aad loo filayaa in dhinaca Soomaalida jamhad cusub lagu dhawaaqo iyadoo arrintaasi aan xaqiijin karin laakiin saansaanta iyo sidoo kale tuhnada aan helayna ayaa sheegaya ama xogahan helayno ayaa sheegaya in arrintaasi si weyn loo wado waxaad ogtahay in dowladda Itoobiya 4 maalmood ka hor ama 2 maalmood ka horba ay ururka ONLF ku eedeysay in ay xidhiidh leeyihiin ururka Al-Shabaab onaagsheene TPLF iyo sidoo kale urur caalami oo doonayo in ay Itoobiya ee burburiyaan dhinaca kalena ay ka sameeyaan waxa weeye xaalad khalkhal taas oo weli dowladda Itoobiya aysan ka garaabin dhinaca kalena aysan raali gelin ka bixinin ONLFna weli ay ku taagan tahay dowladda Itoobiya waxay xadgudub ku haysaa waxa weeye madax banaanidanada iyo jiritaankanada iyo heshiiska aan la galay isku soo duuduba mucaaradkan ku sii qulqulaya dalka Qaahira magaalada Qaahira caasimadda dalka Masar waxay u muuqataa in ay isu diyaarinayaan sidii dowlad ku meel gaadha oo mid Abiy Ahmed aan ahayn ay ku dhisi lahaayeen dhinaca kalena ay ugu dhawaaqi lahaayeen jamhadana looga gelin lahaa xuduudda dalka Itoobiya Masarna ay dhaqaale maal iyo saad military waxay hayso ay ku siin lahayd su-aasha ugu dambeysay aan ku weydiinayo waxaa weeye shacabka deegaanka Canfarta waxa ay si weyn uga hor yimaadeen ciidamo la sheegay inay yihiin Eritrean oo ku sii qulqulaya ama la rabay in la geeyo gobolkaasi Berhale maxaad warka haysaa arrintaas Axmedow shalay warkeena ayaan ku sheegnay in kumanaan ka tirsan ciidanka militariga dalka Eritrea oo ka kooban taliska 29aad 49aad 51aad iyo 72aad in laga soo dejiyay deegaanka Bade oo isla gobolka Canfarta dhinaca kalena loo soo daabulay gobolka Berhale halkaas oo la doonayo inay ka galaan buuraha istiraatiijiga ah ee Sobil si ay dagaal ugu qaadaan falaagada TPLF aagaasi ku sugan xogo aan helayno ayaa sheegaya in saaka dad shacabo oo aad u fara badan ay iskugu soo baxeen shaariciyada waaweyn ee gobolka Berhale iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran shacabkan ay ku baaqahayeen ama ay ku dhawaaqahayeen in ciidamada Eritrea ee doonayo in ay gudaha gobolka Tigreega galaan dhinaca kalena ay ka dagaalamaan buuraha Sobil ay ka baxaan dalkooda arrintaasi waxay ku macneeyeen dhowr arrimood kow waxay sheegeen inay uga cararayaan in ciidankan Eritreanka xilliga Tigreega soo galeen ay geysteen dambiye ay ka mid yihiin dhac kufsi barakicin iyo sidoo kale in wixii qalab yaalay gobolka Tigreega ay rarteen oo ay dalkooda la aadeen sidoo kale goobihii lagu dagaalamay inay ka geysteen xasuuqyo aad u xoogan oo aan loo kala aabayeelin dhinacyadii lala dagaalamahayay iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee deegaanada iyo baadiyaha deganaa waxaa kale oo ay sheegayaan shacabka Canfartu inay iyaguba diyaar u yihiin la dagaalanka TPLF dhinaca kalena ay ka go'an tahay in aysan soo gelin deegaankooda xilli laakiin buuraha Sobil oo ka tirsan deegaanka Canfartaba hadda ay TPLF ku hayso haddaba shacabka Canfartu waxay si weyn uga soo horjeedaan in ciidamadan Eritreanka ah la geeyo gobolka Amxaarada
iyo sidoo kale deegaanada kale ee dalka Itoobiya ay ka socdaan dagaalada, balse deegaanka canfarta bataatanba ciidankaasi aysan ka howlgelin, iyagoo ku sheegay in ay caqabad iyo dhibaato ku yihiin. Axmedow, waxaa xasuusin mudan ama saaxiibadeenna laga yaabo inay la yaabaan waxa keenaya in shacabka canfartu ay diidaan ciidamada Eritrea. dad canfartu waa sida Soomaalida oo kale, oo waxay degan tahay dalalka Itoobiya, Djibouti iyo sidoo kale dalka Eritrea. waxaa kaloo canfartu degan tahay gobolka Tigreega ee hadda ay dagaalada ka socdaan, gaar ahaan magaaladan Maqale. canfar aad u fara badan ayaa degan, waxayna ku leeyihiin gobolka ugu weyn ee deegaanka canfarta. maadaama canfartu marka intaasoo dhul degan, siyaasadda Djibouti, midda Eritrea, tan Itoobiya ee deegaanka canfarta iyo tan Tigreega way isa saameynayaan, waxaana laga yaabaa in canfarta degan dalka Eritrea ay dhibaato ku qabaan taliska ee siyaas afaweerki ee macaangaga ah ee dalkaasi maamulahaya tan iyo xilligii xorriyadda qaateen. maadaama marka xaggaas ay caqabad ku haysa shacabkaasi ay ku hayaan ama ay dhibaato kala kulmaan, in ay kuwa halkan joogo ay waxa weeye connection wada sameeyeen oo ay leeyihiin ciidamadaas iyo idin soo gelin oo xaggaasna lagu gumaadayaaye xaggana yaan laydinku gumaadin. waxaa kale oo iyadana soo baxayso in saraakiil horey oga soo carartay dalka Eritrea oo ku sugan deegaanka canfarta, kuwaas oo khilaaf uu kala dhexeeyo keligii taliska xukuumadda dalka Eritrea siyaas afaweerki inay ku sugan yihiin deegaanka canfarta, lagana cabsi qabo in saraakiishaasi ay gacanta u galaan ciidamada Eritrea ee soo galaya gobolka Birhare iyo guud ahaanba gobolada kale ee deegaanka canfarta. isku soo duuduuba, shacabku si weyn ayay arrintaas uga soo horjeedsadeen. madaxweynaha deegaanka canfarta waxa uu dabcay inuu dejiyo, balse waa uu ku guul daraystay. waxaana la sheegaya in ciidanka canfarta ee liyu booliska, maleeshiyaadka iyo shacabku ay arrintaasi ka midaysan yihiin, iyo in ciidamada canfarta ee soo galay dhulkooda ay iskaga baxaan. laakiin ilaa iyo hadda ciidanka canfarta ee soo galay Eritreanka kama aysan bixin, ee gudaha deegaanka canfarta ayay ku jiraan. welina halkaasi waxaa ka taagan ismaandhaaf u dhexeeyo shacabka labada dhinac. su-aasha dad badan isweydiinaya waxa weeye deegaanka Xumayra ee saddex geesoodka ah ee saddexda wadan ee u dhexeeya Suudaan iyo Eritrea iyo Itoobiya ee maalmihii ugu dambeeyay dagaalada ugu badan ay ka socdeen, oo weliba kooxda TPLF ay ku doonaysay in deegaankaasi ay qabsato oo ay si ay wado ugu hesho. dagaaladaas xaggee ku dambeeyeen? yaa gacanta ku haya? ma duqeymihii baa weli ka socda? bal arrintaasi dib ugu noqo. Axmed, aad baad u mahadsan tahay. TPLF waxay la wareegtay deegaanka Maykadra oo horey xasuuqyo kala duwan loogu eedeynayay inay ka geysatay, dhinaca kalena ciidamada militariga Itoobiya liyu booliska ay ka geysteen. deegaanka Wakahumra waxaa la sheegayaa dagaaladu in ay maalinba maalinta ka dambayso ama labada saacadood ee isku xigaba inay sii kala karar qaadanayaan. dowladda Itoobiya shalay waxay sheegtay in TPLF halkaasi ay ka geysatay xasuuqyo ka dhan ah bini'aadamka, dhinaca kalena ay burburisay hanti ay lahaayeen dadweynaha halkaasi degan. waxyaabaha la yaab kale shalay soo qaadatayna waxaa ka mid ahaa in digaagta iyo sidoo kale xawayaanka aagaasi ku nool TPLF ay aruursato baabuurro ay ku daldalatay. marka laga soo tagay eedeymahaasi, TPLF dhankeeda kama aysan jawaabin, laakiin waxaa la sheegayaa saraakiisha ugu fara badnayd ee ka tirsan jenaraaladii TPLF in lagu sii daabulahayo halkaasi si ay guul ooga keenaan dagaalka halkaasi ka socdo. laakiin TPLF waxaa la sheegay halkaasi inay tilaabo qaadi laadahay, sababtuna ay tahay kumanaan ka tirsan ciidanka militariga Eritrea oo halkaasi lagu soo daabulay ama ka dagaalamahayo. sidaad ogtahayba TPLF inta badan ciidamada Itoobiyaanka ah ee ka dagaalamaya Furemaha way ka adag tahay, laakiin Eritreanka iyo Tigreega markay isqabtaan TPLF waxay noqotaa waxa weeye hal dhume iyo hal dhaan raaco oo yaa laga dhigaa, oo ciidamadan Eritreanku wax jixaanjixo ma aha. sida dhanka kalena Tigreega iyo Eritreanku xifaaltan siyaasadeed iyo isnacayb baa ka dhexeeya. marka halkaa waxaa la sheegayaa in Eritreanku ay aad waqti u gelinayaan in Tigreegu aysan qabsanin gobolkaasi, dhinaca kalena aysan u gudbin dhinaca xuduudda dalka Suudaan, iyadoo horeyba ay u soo baxayeen in madaxweynaha Eritrea siyaas afaweerki uu sheegay in dagaalkan Tigreega markuu soo afjaro uu dagaal ku qaadi doono dalka Suudaan, taasoo macnaheedu tahay in cabsi weyn uu ka qabo xidhiidh TPLF ay la samaysay dalka Suudaan in Eritrea ay ku burburi doonto. marka Axmedow, Wakahumra ilaa iyo hadda laguma kala bixin, labada dhinacna guul ma aysan kala sheeganin, dagaalkuna ma istaagahayo. saraakiisha ugu sarreysay ciidanka Itoobiya iyo dhinaca kale saraakiisha ugu sarreysay ee militariga Tigreega iyo TPLF iyo kuwa Eritreankana si hulhuleela ayaa meeshaas loogu soo daabulayaa. meydku waa baytimaal, hanti iyo dad iyo wixii meesha adduunya ku noolaana way bas beeleen oo waxaa weeye labada dhinac ayaa cagta mariyey. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. xubinteenii faaqidaada inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal. intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamida waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.